Soomaaliya walaalayaal dhammaan waxaan idinka codsanayaa meel kastoo aad ku nooshihiin dal iyo dibad intaba inaad ii hiilisaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waa 1 January sanadka cusbaay ayaa noo bilaabanaya oo maxaan ku yiraahday ahay sanadka 2023. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay sanadkan iyo sanado badan oo kala soo socdaba nabad iyo barwaaqo ku gaara. inta kadib hadal jeedin kooban oo sanadka cusub iyo ilaa hadda inta aan joogno wixii noo qabsoomay iyo meesha aan u soconno inaan maanta aan dadka la wadaago ayaa ugu muhiimsan. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxa ugu muhiimsan oo maanta ay qalbiga qof walba uga jirto oo ku hayaahay waxa weeye arrimaha amniga. walaalayaal wax kasta oo horumar oo ummad gaadto, wax kasta oo wanaaga oo wanaag adduunyo iyo mid aakhiraba ah waxay ka dambeeyaan marka qofka amni uu haysto oo gurigiisa nabad inta ku seexdo subaxina nabad uga soo toosi karo. waa sidaas sida aan muhiimadda koobaad aan u siinay arrimaha amniga. muddadii koobneed ee talada dalka aan gacanta ku haynay oo aniguna aan odayga ka ahaa dawladda cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan abaabulnay ka shaqeynay dadweynaha Soomaaliyeed u istaageen si abaabulan in loo beegsado nimanka khawaarijta ah oo 15 sano la soo dhaafay 16 sano ku dhawaad dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa ciriiri iyo cabsi ku hayay. dadku in ay maanka iyo maskaxda ka xoroobaan ayaa wax kasta ugu muhiimsan. nimankaasi dagaalkooda dadka Ilaahay mahad ka gaarto inta kadibna ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto mahad ka gaarto ayaga ayaa sabab u ah guulkan meel kasta oo dalkeena kamid ah. khibraddu waxayna tusaysaa amni ka jiro, amni sare, amni dhexe, amni hoose, mid doonaba ha ahaade waa meesha dadku ay u istaageen inay amniga ilaaliyaan. sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed maanta waxay u istaageen inay khawaarijta iska qabtaan meel kastoo ay joogaan. dagaalkaasi meel fiican u maraya gabagabadiisii ayaana dhow. sanadkan 2023 waxaan rajaynaynaa sanadkii Soomaaliya ay u bixi lahayd barwaaqo iyo bashbash. walaalayaal si haddaba dagaalkaas ay dadku u istaageen dawladnimaduna ay uga jawaabto, dawladnimaduna ay dadku mid ay leeyihiin ayada ay u noqoto hoggaanka dalka ee qaybaha kala duwan gaar ahaan madasha wada tashiga heer qaran. waxaan shirkii afraad aan qabanay dhawaan iyo shirarkii ka horeeyay saddexda intaba waxaan ilaa hadda meel fiican gaarsiinay inaan ka heshiino siyaasad ahaan arrimaha amniga qaranka, qaab dhismeedka amniga qaranka. siyaasad ahaan aan uga heshiinay, farsamadeediina way socotaa iyo tafaasiisheedii hoose sida loo waxay lahay. sidoo kale waxaan dhawaan ka heshiinay ayadana oo aan meel soo gaarsiinay arrimaha aan isleenahay amniga ayay taabanayaan oo dhan oo aan gadaal ka soo sheegi doono. waxaan hiigsanaynaa oo noogu horeeya marka arrimaha amniga la yiraahdo dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda isku tahay inay xilka amniga dalka iyo dadka ay la wareegaan bisha December 2024 oo si buuxda ay ula wareegaan. walaalaheen Amazon iyo caalamkiina kaalmeynayana aan u mahad celino oo aan tusino inaan markaan gaarnay heer aan kula wareegi karno amnigana aan ku haran karno. taas oo dawladdu dadaal badan ay ugu jirto. ciidamada Amazon ee baxayaahi sidii ciidamadii Soomaaliyeed ee bedeli lahaa ee amniga ulana tira ahaan iyo tayo ahaanba kor loogu qaadi lahaa hadii alla yiraahdo. dadkaasi marka aan intaas ka soo gudbo arrimaha dib u dhiska dhaqaalaha. dalka Soomaaliya waa dal fursado badan oo dhaqaale xoog badan oo ku kasban karo, ku beeran karo, ku heli kara haysta, laakiin ay u baahan tahay in la habeeyo oo la qaabeeyo. waxaan ku soo jirnay dhaqaale aan habeysnayn ama afka qalaad lagu yiraahdo informal economy. haddana waxaan u soconaa formal economy, economic qaabaysan adduunyadu ay fahmi karto. dadka Soomaaliyeedna dhaqaalahooda u kobcayo u horumarayo sida adduunyadu ay dhaqaalaheedu u horumaro u kobco oo u koomo. sanadkan 2023 gudihiisa waxaan gabagabayn doonaa arrintii deyn cafinta oo muddo soo socotay oo marba heer soo martay. gabagaba ayay maraysaa sanadkan 2023 ee maanta bilowday na dhexdiisa insha Allah
waan gabagabaynaynaa arrimaha diinta Soomaaliya diinta laga cafiyay oo aan deen lagu lahayn oo adduunyada la macaamili karto macaamilka adduunyada arrimahaas diinta ayaa naga hortaagan dalku sidoo kale wuxuu ka qayb galayaa ururo iyo suuqyo dhaqaale oo caalami ah oo dhaqaalaheena uu kor u kaco dadkeenu waa dad ganacsato ah waa dad dhaqdhaqaaq badan waa dad leh tamar badan oo ay dhinaca ganacsiga iyo hal abuurka iyo ay ku horumariyaan sidaas daraadeed dowladda federaalka Soomaaliya aan madaxweynaha ka ahay waxay u istaagtay dalka Soomaaliya sidii uu ugu beeri lahaa suuqa bariga Afrika oo suuqaas oo 400 milyan dadka badan ay degan yihiin suuqna ay u yihiin maadaama dadkeenu arrimaha ganacsiga ay aad iyo aad ugu dheereeyaan aan fursado badan ka haysano haddana hanti badan iyo maalgelin badan ay naga jirto suuqaas laakiin u baahan sharciyad inuu helo waan rajaynaynaa in sanadkan 2023 gudihiisa ay soo gabagabowdo arintaas ku beerista suuqa bariga Afrika hadii la yiraahdo sidoo kale dhawaan shirka Mareykanka ka dhacay ee Afrika iyo muxuu ahay Mareykanka waxaan uga soo hadalnay arinta heshiiska la yiraahdo heshiiska AGOA oo muxuu ahay Afrika fursadaha ganacsi iyo fursadaha dhaqaale ee Mareykanka ay kula macaamili karto leh arintaas oo badeecadaha Afrika laga wadamada Afrika ee heshiiskaas galay badeecadahooda si oo cashuur dhaaf ah loo geyn kara dalka Mareykankana waad ogtiin suuq aad iyo aad u ballaaran waay arrimahaasna heshiisaan ka soo galnay gabagabadii ayuu marayaa iyo dabagalkeedii wax farsamooyin ah ayaa ka dhiman sidaas daraadeed badeecadaha dalka Soomaaliya lagu farsameeyo ama dalka Soomaaliya ka soo baxay waa suuqyada Mareykanka ay tagi doonaan cashuur dhaaf ku tagi doonaan dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa maanta meesha aan joogno leeyahay nagu qiimeeynin meesha aan u soconno hal la suuq qiimeeyo waana meesha aan u soconno hadii la yiraahdo adaha dawladda waxay sidoo kale ka shaqeyn doonaan qorshaha muddada fog ee aan haddana horeyna uga hadlay hiigsiga 2060 hiigsiga 2060 waa hiigsi aan rabno 100 sano markaan dawlad ka bacdi meesha aan joogayna inaan maanta si calaameyn oo aan dhahno 38 sano kadib waxaan gaaraynaa meeshaas sidaas daraadeed qorshayaasha dhaqaale muxuu ahay dalka oo loo dejinayo qorshayaasha horumarineed ee dalka loo dejinayo ee kala duwan in lagu saleeyo fogaan aragaas iyo aragtidaas 2060 ee qarni jooga ah sida Soomaaliyada aan rabnaa ay u ekaanayso walaalayaal dadku jaha u socda hadaan u garanaynin meel ma gaarayo ama uu lumaya waxaan rabnaa jihadaan u socon inaan garano Soomaaliya barwaaqo ah ayaan rabnaa 2060 in la gaaro oo dhinac walba barwaaqo ah xaq dhaqaale xaq amni xaq siyaasadeed xaq maxaan ku iraahdaa diblomaasiyadda caalamiga intaba sidii aan ku gaari lahayna qariitadeedii iyo wadadii loo maray maanta ayaan shaqadeedii bilaabaynaa si jiilka 2060 jooga ay u noqdaan kuwa ka fursado badan jiilka maanta jooga ama jiilkii joogay muddooyinkii dhawaay ee la soo maray walaalayaal intaas kadib markaan helno waxaan aad iyo aad muhiim u ah si amniguna oo joogto u ahaado aan sameeyno waad garanaysaan dalkan marar badan amniga la sugay laakiin joogto waa noqon waayo oo mar walba dib u hinqasho iyo dib u noqosho ayaa dhacaysay si amniga aan sugayno dhaqaalaha aan ka shaqeynayno intaba ay joogto u noqdaan waxaan u baahanahay dawladdaasina dawlad ma tahay maaha dawlad dimuqraadi ah oo suuqa xorta ah ka shaqeysa oo fikirka xorta ah ku shaqeysa oo nidaam dadku ay awoodda inteeda badan ay leeyihiin talada ayagu ay ka go'do lala tashaday waxa ay dadku rabaan lagu hagay ayaan ka shaqeynaa nidaamkaas waxa la yiraahdaa nidaamka dimuqraadiyeynta dalka aad iyo aad ayuu u ballaaran yahay waxaan rabnaa dalkan inuu ka guuro duruufta maanta uu ku jiro oo ah amni darrada dhaqaale xumida baahida muxuu ahay iyo gacan hoorsiga iyo maxaan ku iraahdaa dhaqanada jaahiliga ah ee kala aarsashada iyo beelbeel isu diridda iyo degaan u diririda gudaha ah inaan ka gudubno ayaan rabnaa waxaan rabnaa kala aargudashada siyaasadeed ee hore inoo gelisay maartadii dabada dheereed ee colaadda ee aan soo marnay xilligii hadda doorashadii dhaweyd oo kale inaan dib ugu noqono ma rabno ma doonayno siyaasaddu in ay noqoto wax dadka isku dira wax dadka iska horkeena wax la isku qabsado
ayada oo sababtana ay tahay shakhsiga ambitionkiisa iyo rabitaankiisa iyo xukun jacaylka iyo waxyaabaha lamid ah qofna xukunka ma jeclaan karo xukunka ilaaha bixiya qofkii ilaahay siyaa qaata qofkii ilaahay ka qaadana waa uu ka tagaa waxaan rabnaa inaan intaan ku qanacno dadkeena aan siino fursadda ah in ay ayagu doortaan dadkii hogaami lahaa waxaan in badan ku celceliyey oo mabdaxa aad iyo aad u xoog badanna naga ah dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo mustawa kastoo ay joogaan cidda xukumaysaa cid ay tala ku leeyihiin inay tahay yaa siyaasadda kugu masalayo yaa maxaan ku iraahdaa talada iyo xukunka kugu masalayo yaa maamulka iyo mas'uuliyadda kugu masalayo dadka Soomaaliyeedow inaad idinku lahaataan rabnaa oo idinku aad go'aan ka gaartaan oo idinku aad go'aansataan oo tala caliyaan xukumay caliga aad xukunka u dhiibateen muddada kooban ee la garanayo ee aad xukunka ugu dhiibateen haddii uu fiicnaan waayana inaan dagaal iyo xoog iyo aan lagu bedelin loo sugo waqti la siiyo muddadiisa markay dhamaato in markaa kii kale ka fiican aad adinku aad u aragtaan inuu ka fiican yahay ra'yi cad wata oo wax la fahmi karo lagu xisaabtamo qofka siyaasiga ay waa inuu keenaa ra'yiga dadka uu ku hogaaminayo iyo jihada uu dadka u hogaaminayo si loola xisaabtamo war waxaad noo sheegtay waxaan ma ahayn si loo dhihi karo isaguna markaas haddii wixii uu sheegay wax ka duwan uu la yimaado haddii uu duruufta ku kaliftay wixii in la bedelana dadka inuu u sheego laakiin maankayga waxa yarka ay aniga ku jira ayaan dalka iyo dadka ku xukumaya oo meeshii subax walba aniga ila aataan la aadaya macquul maaha sidaas daraadeed nidaamka dimuqraadiyeynta ee ku salaysan doorashooyinka xorta ah dastuurka xorta ah aragtida cabiridda xorta ah ilaalinta xuquuqda muwaadinka meel kasta uu joogo muwaadiniinta Soomaaliyeed xuquuq isku mid ah inay leeyihiin dalka daafihiisa kala duwan meel kasta ay ku nool yihiin ma qabi karno mana sameyn karno raalina kuma noqon karno laba muwaadin oo kala xuquuq ah oo midna xuquuq nooc leh mid kalena xuquuq nooc kale ah ay ka maqan tahay ama uu leeyahay waxaan rabnaa muwaadiniintu in ay xuquuqda asaasiga ay ka sinaadaan ee dastuurka ku cad waxaan rabnaa mar intaa kadib deegaan kasta duruufihiisa gaarka isaga garanaya wixii asaga u gaara inuu ka tashado laakiin waxa Soomaalida ka wada dhaxeeyo oo ay ugu horeyso muwaadiniin xagga xuquuqda ka siman xagga sharciga u siman ay ugu horeysahay waa waxa dadku wada leeyihiin oo meel isku mid ah in looga soo jeesto u baahan waxaan rabnaa inaan dib u heshiisiin galno dadka Soomaaliyeed inay heshiiyaan dib u heshiisiintaas oo anagu laba nooc ah bas dib u heshiisiin bulsho iyo dib u heshiisiin siyaasadeed dib u heshiisiinta siyaasadda waa ku jirnaa Soomaaliya waxay siyaasiyan ku heshiinaysaa waa dastuurka afka inta laga heshiiyo lagu kala tago ee bari meesheeda laga bilaabayo waana soo dilootay nooma noqonayso markaan dib u heshiisiinta siyaasadeed ee aan galeynay dastuurka ku salaysanaanay wixii aan ku heshiino dastuurka lagu qoraa waana wax naga wada dhaxeeyo oo muwaadiniinto dhan ay u wada siman yihiin waxa u gaarka ah nidaamka federaalkan qaadanay deegaan kasta waxa u gaarka hoos isaga warsanayo labada lakab ee dawladuna intaasay ka shaqeynayaan waxa deegaanada u gaarkaana dawlad goboleedka iyo dawladda xubinta ka federaalka ayaa mas'uuliyadeeda leh sharci dejinteeda leh fulinteeda leh waxa dadka dhan ka dhaxeeyo oo wada taabanayaan dawladda federaalka oo dawladda dhexe ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay soo wada dhisteen ayaa iskale waxa u dhaxeeya ee meelaha loo yaqaano aan xagga midna ahayn waa laga wada tashanaya si dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha waa ka wada tashanayaan wixii ay kala leeyihiin ama ay mas'uuliyad waay waxa la kala qaadanaya ma aha wax la kala xoogayo la kala jiidanayo mas'uuliyadaha ayaa la kala qaadanaya shacabka Soomaaliyeed loogu adeegayo laguna hogaaminayo sidaas daraadeed labadaas midda dib u heshiisiinta bulshada deegaan kasta iyo mujtamac kasta oo meel ku nool khilaafa ka dhaxeeyo waxa lagu kala duwan yahay khilaafaadka imaanayo qaab loo xalliyo si loo xalliyo dad ay meel u taalo oo markay yimaadaan haye meel hebel ah lala aada la leeyahay iyo dadaan lahayn nidaam iyo si lagu xalliyo oo xoog iyo cunfi iyo colaad inay adeegsadaan ku qasbanaanayo waxaan rabnaa nidaamka dib u heshiisiinta bulshada in la degaameeyo bulshada meesha ay ku nooshahay la geeyo qaab dhismeedyo iyo xeerar lagu haga bulshadaasna ay muxuu ahaay lahaatay laana bulshooyinku isku mid ma aha
habnololeedkeena hoose waa kusii kala duwannahay deegaanada waa ku kala duwannahay khilaafaadka ka dhexdhacaya bulshooyinkana sidaasoo kale ayaan ugu kala duwannahay bulshooyinka dacalkaas iyo dacalkaa ku kala nool khilaaf kama dhexeeyo lianna wax weyn oo deegaanadii iyo duruufahoodii oo ka dhexeeya ma jiraan sidaas daraaddeed ayaan rabnaa dib u heshiisiinta bulshada in la degaameeyo qaabka looga heshiinayana la degaameeyo oo degmada iyo tuulada structurekooda xukunka uu ka mid noqdo qaab dib u heshiisiinad intaas haddaan gaarno waxaan ka badbaadaynaa khilaaf siyaasadeed inuu dhaco oon siyaasadda isku dilno waa ka badbaadaynaa waxaan ka badbaadaynaa koox xag jir ah oo extream ah oo khawaarij ah inay naga dhex dhalata mar kale waa ka badbaadaynaa iyadana waxaan ka badbaadaynaa boodkii beertaa igu soo riixday iyo geeliyaa iga dhacday iyo ceelkaad igu garbisayna khilaafka ka imaanayana waa ka badbaadaynaa markaan labadaas qaab oo dib u heshiisay dowladda federaalka ee soomaaliya ee madaxweynaha ka ahayna waxay u taagan tahay in ay qaab dhismeedkii waxaasi markay dhacaan looga heshii lahay oo ay u dhaqangeli lahay halhayskii ahay soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah intaas markaan helno ay dhexdeenana heshiisaan nahay dastuur mugaan helnana dunida heshiisaan lanahay laanna dunidu waxay nagu qiimeynayso waa dastuurkeenna dunina dhihi karta dastuurkiina xadgudub ku sameeya ma jirto laakiin inaan yeelano dastuur waayo waxa aada iyo aada muhiimka noogu ah ilaahay idinkiis waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto in hoosta aan ka xariiqo go-aanadii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran ee soo baxay in badan ayaa laga sameeyey hadallo iyo oraahyo iyo maxaanku raa faallooyin aan saxda iyo xaqiiqada aan ku salaysnayn shirki dhawaa ee aan isugu nimiday golaha wadatashiga shir aada u muhiim u ahay laba ajanda ugu muhiimsanayd oo laga hadlayay labadaas ajando oo laga ballamay 2 bil ka hor shirkan ka horeeya looga ballamay shirka dambe isugu imaan doono labadan ajandaan ka hadlaynaa qolo walba ha ka soo fikirto ha soo darasto duruufaheeda soo aragto deegaanadeeda iyo dadkeeda hala soo tashato dastuuradooda hoose ha soo eegaan kulli ha soo fiiriyaan markaan isku nimaado aan ka hadalno labadii qodob waa ka hadalnay heshiis ayaana laga gaaray marka laga reebo walaalaheen reer Puntland oo weydiistay oo yiri annagu waxaan u baahanahay wadatashi dheeri ah wadatashiga hore naguma filaan waqtiga horena naguma filaan waxaan u baahanahay inaan amuurahan waxoogaa waqti kalena la siiyo oo aan wadatashi dheeri aan ka galno waqtigay u baahnaayeen ay qaateen insha Allah waa rajaynaynaa aragtidooda oo ayadana inay noo keenaan markaasna aan isla wada qaadano aan ku beerino laakiin labadii ajando afartii dowlad goboleed ee kale iyo dowladda federaalka ah waa iska afgarteen waana saxiixeen meel ayayna dhigeen walaalaheen maamulka dowladda Puntland waxaan rajaynaynaa in ayadana mar dhow aan heli doono aragtidooda si ay qayb uga noqoto heshiiskaas bulsho ee la gaaray oo hadhowna aan rabno in lagu saleeyo dastuurka ee iman doona haddii alla yiraahdo gabagabadii sanadka cusub ee 2023 wuxuu dowladdeena u yahay sanad adeeg iyo sanad waxqabad waa afka qalaad lagu yiraahdo delivery year insha Allah wuxuuna haddii alla idmo baal dahab ah la geli doonaa taariikhda hayaanka ee aan ku jirno dhismaha dowlad casri ah oo dunida oo dhan la jaan qaadi karta sidaas daraadeed sanadka 2023 waa sanadkii dib u xoreynta dalka sidoo kale waa sanadkii dhamaystirka geedi socodka ee deyn cafinta Soomaaliya ay ka madax banaanaan lahayd deynta sidoo kale waa sanadkii dhamaystirka dastuurka qabyada ah ee aan maanta haysano sidoo kale waa sanadkii tayaynta iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida dhammaan oo waataan hadda ka hadlayay siyaasiyadna waa looga heshiiyey farsamo ahaanna waa la wadaa aan u lahayn waa sanadka 2023 waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena waxaan rabnaa sanadkan inaan macallimiinta tiradooda aad u kordhino dugsiyada public ah ee dadweynuhu leeyihiin aad u kordhino oo tacliin wax dadka danta yarta ah ee Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay sanadka 2023 waa sanadkii sugidda amni waara oo qaab dhismeedyo leh oo shuruuc leh oo nidaam leh sanadkii dalkeena oo yeelan lahaa waa sanadka ilaahay idinkiis waa sanadkii xasilooni siyaasadeed la gaari lahaa oo dastuurka meel uu gaari lahaa oo isfahamka siyaasadeed dhammaan heerarka dowladda federaalka iyo hay-adaheedu
ay gaari lahaayeen oo siyaasadeenu siyaasad xasilan oo la garanayo waxa biri soo socda haddii alla yira ayna u noqon lahayd waa sanadkii diiwaangelinta dadweynaheena dadkeena inaan diiwaan gelino meel kasta iyo deegaan kasta ay joogaan aqoonsi muwaadinimana aan siino sanadkii aan xaqiijin lahayn waaye haddii alla yira waa sanadkii dhammaystirka dhismaha hay-adaha qaranka Soomaaliya komishinadii dastuuriga ah kuwii kale oo madaxa banaanay kuwii kale hay-adaha u adeegi lahay ee aan wasaarad bas kama koobanta hay-ada kale ka koobanta oo naga maqan haddana waa sanadkii la dhisi lahaa oo la dhaqan geli lahaa ilaahay idankiis sanadka 2023 waa sanadkii dejinta shuruucdii lagu xaqiijin lahaa sareynta sharciga dalkan inuu sharcigu sareeyo oona muxuu ahay cid walba ka sareeyo sharciga sanadkii la xaqiijin lahaa waana sanadkii dhowrista xuquuqda aadanaha dadkeenu ku tumasho badan ayay qabaan ku takrifal badan ayay qabaan ama dhaxdooda isku takrifalaan ama hay-adaha dawladda qaarkood ku takrifalaan waa sanadkii ilaahay idankiis laga imaan lahaa ugu dambeyntii waxaa inoo ballan ah bisha January 2024 annaga oo ku guuleysanay dhammaan himilooyinka iyo yoolalka ay dawladdu higsanayso aniga oo ka codsanaya muwaadin kasta in uu kaalin ka qaato dadaalka uu lagu hiigsanayo dawladnimo waarta waxaan ka codsanaynaa muwaadin kasta in uu fikir xoog xoolo iyo dhiirigelin ama wixii kale ee qofku ku biirin kara dawladnimada uu ku biiriyo si aan u gaarno taabagalka himaladeena ugu dambeyntii Soomaaliyay walaalayaal dhammaan waxaan idinka codsanayaa meel kastoo aad ku nooshihiin dal iyo dibad intaba inaad ii hiilisaan aniga oo ah madaxweynihii shalay idinku aad doorateen oo aad iigu hiilisaan soo celinta karaamada sharafta aan muddada dheer ka oomanayn ee aan u hanqal taagayn Soomaalidu waxay ka mid yihiin ummadaha dunida ugu karaamada badan ugu sharafta badan ugu hiibada badan oo ilaahayna uu ku manaystay xaq diin ayaan ka midaysanahay xaq isir ayaan ka midaysanahay xaq af iyo dhaqan ayaan ka midaysanahay sabab aan u noqon weyno kuwa dunida dhul barwaaqo ah oo bad iyo bari iyo beerba bad iyo bar iyo beerba leh ayaan nahay khayraad badanna dhulka hoostiisa iyo badda hoosteeda ilaahay oo ugu manaystay Soomaaliyay aniga ima muuqata sabab aan u noqon weyno dadka dunida ugu karaamo badan ugu sharaf badan ugu nolol fiican ugu faraxsan oo farxadda ugu badan ku jira taladeeda baa naga guracantay walaalayaal waxaan u taaganahay taladaas inaan hagaajiyo waxaan codsanayaa in la iigu hiiliyo mashruucaas meel kastoo dadka Soomaaliyeed ay joogaan hoos inaanan annaga isu fiirin ee dunida naga tagtay aan kor u fiirino oo aan hiigsano oo aan ka daba tagno waana ka daba tagi karnaa ilaahay idinkiis aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh